War degdeg ah. Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa sheegtay inay cafis u fidisay qaar ka mid ah maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa. Dowladda ayaa sheegtay in cafis loo fidiyay siyaasiyiintii hore ugu xidhnaa dambiyo hore iyo kuwa dagaaladii socday loo soo xiray intaba. Sii deyntan ayay dowladda ku sheegtay inay qayb ka tahay wada tashiyo qaran. Siyaasiyiinta dowladdu ku dhawaaqday inay sii deysay waxaa ka mid ah Sepat Nega, Abaid Woldu, Abadi Zemu, Gabre Exiapa, Kiros Hagos, Jawhar Maxamed, Exendiga Nega. Dhammaan siyaasiyiintaasi iyo kuwo kaleba caawa ayay dowladda cafis u fidisay. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlayay kulan lagu qiimeeyay wasaaradaha federaalka ayaa yiri hay'adaha cadaaladda garsoorka booliska iyo xeer ilaalinta dhibaatooyin ba'an ayaa ka jira heer aan cadaalad kaga hadli karnana maba joogno umana dhawin haddii shalay qofkii dulmi lagu sameeyay ee ka cabanayay uu maanta dulmi sameeyo meertadaasi kama baxayno waligeen. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in safi sharciga baalmarsan dadka qaar loo xiro intay xidhan yihiin kiisaskooda lacago iyo waji garasho hay'adaha cadaaladda ku furdaamiyaan. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sheegtay in Itoobiya ka shaqeynayso sidii ay u xoojin lahayd diblomaasiyadda xooggan ee ay la leedahay dalalka caalamka sanadka 2022 iyadoo la ilaalinayo madaxbannaanideeda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Itoobiya soo food saartay caqabado badan sanadkii tagay ee 2021 isla markaana lagu dadaalay sidii loogu gudbi lahaa. waxa uu sheegay inay jiraan wadamo garab istaagay Itoobiya oo taageeray. Itoobiya waxay aad uga shaqayn doontaa sidii ay wadamo kala duwan u la yeelan lahayd diblomaasiyad xooggan sanadkan la galay ee 2022 ayuu yiri Ambassador Dina Mufti. jabhadda xoreynta Oromia Ola oo sheegtay inay sii wadaan dagaalo ba'an oo ay kula jiraan ciidamada dowladda Itoobiya. Ola ayaa sheegtay in dagaalada uga adag ay ka dhaceen gobolka Guji gaar ahaan waaxiga Nagela, Borana iyo waqooyiga Shewa. dowladda Itoobiya oo mar sii horeysay sheegtay inay weerar ku qaadi doonto goobaha ay ku sugan yihiin jabhadda Ola ayaa la sheegay inay duqeymo xooggan u adeegsanayso dagaalada. si kastaba ha noqotee dagaalada ka socda gobolka Oromia ee u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo jabhadda Ola ayaa lagu soo waramayaa inay sii socdaan. waqooyiga gobolka Afar gaar ahaan waaxiga Apala waxaa weli ka socda dagaalo ba'an oo u dhaxeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiyaadka maxalliga ah iyo ciidamada Tigreeg oo dhinac ah. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si weyn uga qayb qaadanaya dagaalka labada dhinac mid walbana waxa uu adeegsanayaa awoodiisa ugu badan. ciidamada Itoobiya uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa 40 weerar oo dhanka cirka ku qaaday gobolka Tigray tan iyo bishii Oktoobar waxaana ku dhintay duqeyntaasi ugu yaraan 143 qof 213 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka UN-ka. sidoo kale ilo diblomaasiyiin ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalab kale oo laga soo iibiyay Imaaraadka Carabta iyo Turkiga loo adeegsaday duqeymahaasi. Soomaaliya Amazon in lagu wareejiyo ammaanka madaxtooyada iyo arrimaha la rabo in lagu xalliyo dooda Rooble iyo amniga. shirka wada tashiga qaran ayaa sii socon doona maalmo kale kadib markii madaxda maamul goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaare Rooble ay isku raaci waayeen qodobkii uu Ra'iisul Wasaaraha ku dalbaday in lagu wareejiyo ammaanka guud ee dalka. labada maalmood oo ay socotay dooda qodobkan kadib hadda waxaa lagu ballamay in wada tashi hoose loo laabto oo caawa ay isku soo laabtaan dhinacyada. sida ay sheegeen xubno ka mid ah madaxda maamulada markii ay adkaatay dooda qodobkani la xiriira waxaa loo gudbay in mowduuc la jijibiyo oo qayb laga qaato qaybna laga tuuro. tusaale dhanka Ra'iisul Wasaaraha waxa ay keeneen dooda ku saabsan sida la isku aamini karo oo madaxtooyada loogu wada shaqayn karo iyadoo la og yahay wixii dhacay 27kii bishii hore. iyadoo goluhu ka jawaabayo walaacaasi amni waxaa miiska la keenay aragti ah in ciidanka Amazon lagu wareejiyo ammaanka guud ee madaxtooyada oo banaanka loo saaro dhammaan ciidamada Soomaalida ah ee labada nin kala taabacsan sida meesha looga saaro cabsida ku saabsan inuu farmaajo mar kale isku dayo tallaabadii foosho xumeed ee uu qaaday. in ciidamada Soomaalida ah la geeyo kontaroolada banaanka ayaa ku jirtay dooda sida ay wararku sheegayaan. dhanka Ra'iisul Wasaaraha ma diidan aragtidaasi
laakiin lama ogo inuu farmaajo aqbali doono in dhammaan ciidamada Soomaalida laga saaro gudaha madaxtooyada. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo ku heshiiyay qorshaha wax ka beddelka shaqada AMISOM. Howlgallada AMISOM ayaa la kordhiyay ilaa bisha Maarso ee sanadkani, kadib markii ay si wadajir ah isugu afgarteen Soomaaliya iyo Midowga Afrika sida ay mustaqbalka dhow noqonayso shaqada iyo howlgallada AMISOM. Waxaa la isku afgartay oo kale in shaqada ugu weyn ee howlgalka ay noqoto markaan dagaalka ka dhanka argixisada Al-Shabaab, iyadoo loo helayo maalgelin cad si howshaasi loo dardargeliyo. Guddiyo farsame oo labada dhinac ah ayaa ka fariisan doona bishani January 10keeda, iyagoo muddo 30 maalin ah ku soo afjari doona qorshaha iyo qaabka uu noqonayo howlgalka ay ku heshiiyeen, kaasi oo la hordhigi doono bisha Febraayo 11keeda. Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika. Soomaaliya ayaa sanadkii ugu dambeeyay waxa ay waday qorshaha kala guurka ah ee loo yaqaan Somali Transition Plan STP, wuxuuna qorshahani dhigayaa in ay AMISOM ay Soomaaliya sii joogto ilaa 2023, iyadoo ay Soomaalidana ay si aayar ah loogu wareejin doono meelaha xurta ah, sida ku xusan dukumeentiyo kulan dhexmaray African Union Commission iyo dowladda Soomaaliya oo dhacay 18 ilaa 19 Agoosto ee sanadkii dhamaaday. Waxaa meel fiican laga gaaray in la isku afgartay hirgelinta qorshaha STP, waxaana la soo jeediyay in la hormariyo hanaanka hoggaanka iyo in go'aan qaadashada AMISOM ee heerarka FHQ, iyadoo lala kaashanayo UN-ka iyo beesha caalamka in la dejinayo hanaanka isbeddelka oo la taaban karo. Waxaa kale oo soo jeedintaasi qayb ka ahaa in Soomaalida ay magacowdo kooxo kala shaqeeya Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, Midowga Yurub iyo Ingiriiska sidii loo heli lahaa qaabka howlgallada iyo maalgelinta ee wixii ka dambeeyay 2021. Wararkii ugu dambeeyay xiisadda dagaal ee Puntland. Xiisad dagaal ee maalmihii ugu dambeeyay ka taagneed tuulada Saaxmigaag ee dowladka caasimadda Puntland ayaa lagu guuleystay in la dejiyo kadib markii uu halkaasi gaaray uu wafdi ka socdo maamulkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan deegaanka Saaxmigaag ayaa xabad joojin dhexdhigay labada maleeshiyaad beelaad ee ku dagaalsanaa deegaanadaasi. Sida ay helayso warbaahinta gudaha, wafdiga uu hogaaminayo Karaash ayaa qorsheynaya in shirweyne nabadeed lagu dhexdhexaadiyo beelaha dirirtu ka dhaxayso kadib markii ay xabad joojinta si rasmi ah u dhaqan gashay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hogaamin doona shirka nabadeynta ah oo maanta dhici doona, kaasi oo sidii uu qorshaha u yahay ka wada qaybgali doonaan dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. Labadii bishan ayay ahayd markii laba maleeshiyaad beeleed oo uu dagaal xoogan ku dhex maray tuulada Saaxmigaag, waxayna xiisadani ku salaysan tahay deegaamaynta deegaankaasi oo u dhexeeya degmada Boocame ee gobolka Sool iyo tuulada Birta Dheer ee gobolka Nugaal. Khasaaraha dagaalkaasi ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku dhimatay 6 ruux oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qof.